بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka akhrinayaa war saxaafadeed ay si wada jira u soo wada saareen hogaamiyaasha ka kala socda xisbiyada halkan fadhiya maantay oo kala ah xisbiga Daljir, xisbiga Wadajir, xisbiga Kulan iyo madasha Horusocod oo maanta runtii shir halkan uu soo gabagaboobay. madaxda iyo xubnaha xisbiyada Wadajir, Daljir, Kulan iyo madasha Horusocod kulan wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen kadib waxay soo saareen war saxaafadeedkan xilli dalka Soomaaliya uu isku diyaarinayo qaadashada nidaamka xisbiyada badan laguna waday in dalka ay ka dhacdo sanadka 2020 doorasho qof iyo cod ah waxa ayaan darro ah in hogaanka dalku si lama filaan ah uu weerar dhiig badan ku daatay uu qaaday xarunta xisbiga Wadajir ee magaalada Muqdisho. weerarkaas oo uu ku dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. weerarkaasi wuxuu ahaa faldambiyeed ka horjeeda shuruucda iyo dastuurka dalka kaasoo halis ku ah hanaanka siyaasadeed iyo dimuqraadiyadda dalka lagu waday inay ka hana qaado, wuxuuna dhaawac ku yahay hanaanka dawladnimo ee ku salaysan axsaabta badan ee salka ku haya kala aragti duwanaansho arrimaha siyaasadda dalka, annagoo dhanka kalena u aragna in xadgudub cad uu ku yahay xuquuqda, xurriyadda iyo karaamada muwaadiniinta, xurmada hoygooda. faldambiyeedkaas oo ay geysatay hay-adda fulinta dowladda federaalka Soomaaliya ee loo igmaday ilaalinta shuruucda iyo dastuurka dalka u degsan ilaalinta nolosha muwaadiniinta iyo karaamadooda. sidaas awgeed annagoo wakiil ka ah xisbiyada sare ku xusan xubnahooda iyo taageerayaashoodaba, waxaan halkan tacsi uga diraynaa eheladii iyo asxaabtii dadkooda lagu xasuuqay weerarkii naxariis darrada ahaa ee lagu qaaday hoyga xarunta xisbiga Wadajir ee magaalada Muqdisho. waxaan sidoo kale cambaaraynaynaa weerarkii qaawanaa ee lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir 17 bishii 12aad 2017 abaarihii 12 saqdi dhexe ee habeenimo. waxaan sidoo kale dhaleecaynaynaa xabsigii sharci darrada ahaa ee loo geystay mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, handadaadii, magacdilkii iyo cagajuglayntii isugu jirtay ee uu xir ilaaliyaha ku sameeyey xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo warbaahinta xorta ah. waxaan uga digaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay u adeegsadaan ciidamada qalabka sida dilalka iyo argagixinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan, taas oo aan waxba ka sokayn midka ay qabaan argagixisada Al-Shabaab, isla markaana wiiqaysa kalsoonida shacabka iyo siyaasiyiinta ku qabi karaan ciidamada qalabka sida xilli lagu jiro la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. ciidankeenuna u baahan yahay isku duubni iyo taageero dhinac walba ah. waxaan sidoo kale ka digaynaa in loo adeegsado hay-adaha garsoorka, xeer ilaalinta qaranka, culimaa u diinka, howlo siyaasadeed oo looga argoosanayo dadka ra'yiga leh, taasoo meesha ka saaraysa kalsoonidii soo koraysay ee lagu qabay hay-adaha dowladda iyo shuruucda dalka u yaalla. waxaan si cad uga soo horjeednaa in xafiiska xeer ilaalinta loo adeegsado dana siyaasadeed sida sharaf dilka xildhibaanada ka aragti duwan madaxda dalka iyo hanaankii sharciga baalmarsanaa ee uu xeer ilaaliyuhu u maray eedeynta xildhibaano qaran oo shaqadoodii dastuuriga ahayd gudanaya. haddaba inagoo aaminsan in dalkeennu u baahan yahay wadajirka, midnimada iyo taabagelinta dowladnimada ku dhisan ilaalinta dastuurka, saraynta sharciga iyo hirgelinta dimuqraadiyadda, waxaana ku baaqaynaa sida soo socota. in madaxweynuhu waajibkii uu u dhaartay ee ahaa ilaalinta midnimada iyo dastuurka dalkeenna ay khilaafsan yihiin dhacdooyinkii aan kor ku soo xusnay oo abaabulkeeda laga soo qorsheeyey madaxtooyada, loogana baahan yahay inuu guto waajibaadkiisa si hufan asagoo maanka ku haya inuu jiro isla xisaabtan dhab ah. in si dhaqso ah sharciga loo hor keeno madaxdii bixisay amarkii iyo ciddii fulisay weerarkaas sharci darrada ah ee lagu xasuuqay muwaadiniin aan waxba galabsan, laguna dhaawacay kuwa kale, laguna beegsaday dad siyaasiyiin ah. in guddi madax bannaan loo saaro
oo soo baara dhacdadii 17 bisha 12 ka dhacday magaalada Muqdisho sida wax u dhaceen iyo cidda bixisay amarka duulaanka. 5 in gudoomiyaha golaha shacabku uu jawaab degdeg ah ka bixiyo sharaf dilkii oo xeer ilaaliyaha u geystay laba xildhibaan oo kamid ah golaha shacabka taasoo ka dhigan weerar kale oo lagu soo qaaday golayaasha sharci dejinta qaranka. 7 waxaan uga digaynaa madaxda Villa Soomaaliya in dalka ay geliyaan xasilooni darri siyaasadeed iyo mid amni lana aamino mabda ah in wadada kaliya ee lagu xallin karo kala aragti duwanaanshaha siyaasadeedna ay tahay wada hadal iyo isqancin ku qotonta isqadarin iyo isku dulqaadasho. 8 waxaan sidoo kale ku boorinaynaa qaar ka mid ah culimada iyo waxgarad kaleba in ay ka waantoobaan hadallada gefka ah ee lagu beegsanayo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ogaadaana in faldambeedyada lagu beegsaday dad siyaasiyiin ah ay mas'uuliyadooda qayb ka leeyihiin sharcigana lala tiigsan doono. gabagabadii waxaan bogaadinaynaa isla markaana u mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho dadaalka ay u galeen xakamaynta xaaladda iyo dejinta xasaradii jirtay maalmihii la soo dhaafay ayadoo aan ugu baaqayno beesha caalamka iyo AMISOM in aysan indhaha ka fiirsan qalalaasaha ula kaca ee madaxda Villa Soomaaliya ay ku duminayaan dadaalkii dheeraa ee loo soo maray geedi socodka dhismaha nabadda iyo dawladnimada Soomaaliya. hogaamiyaasha xisbiyadani waxay si gaar ah ugu mahadcelinayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba ee ka dhiidhiyay weerarkii bahalnimada ahaa xabsigii sharci darrada ahaa ku tagrifalka awoodda dawladda dagaalkii dimuqraadiyadda lagu soo qaaday iyo isku daygii caburinta siyaasiyiinta dalka ku sugan. ugu dambeyntii waxaan halkan ka cadaynaynaa inaan u taagannahay ilaalinta dawladnimada dimuqraadiyadda isla xisaabtanka dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala iyo la dagaalanka argagixisada. dhammaad Muqdisho 22 December 2017. Allah mahadle.